maxaad ka taqaanaa magacyadii hore ee dalalkan? Dalka Ciraaq waxaa loo aqoon jiray Mesopotamia, waxayna ahayd mid ka mid ah kuwa ugu xadaaradsan caalamka, waana halka ay ku taal magaaladii caanka ahayd ee Babylon. Ciraaqdan casriga ahna waxaa la aasaasay xilligii dowladdii Cuthmaaniyiinta, waana mid ka mid ah kuwa ugu xadaaradsan dunida. Dalka xiga waa Iiraan. Magacii hore ee Iiraan loo aqoon jiray waa Persia, waxayna caan ku ahayd taariikhda, boqortooyooyinka, iyo falsafadda iyo sayniska. waxaana 1935 loo bedelay magaca Iiraan, waxaana maanta loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. waa mid ka mid ah kuwa ugu qadiimisan dunida. Dalka xiga waa Myanmar oo dhaca koonfurta bari ee qaaradda Aasiya. Dalkan magaciisii hore waa Burma, wuxuuna ahaa dal weyn oo qadiimi ah. sidoo kale 1989 ayuu la baxay magacan Myanmar, waana mid ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin muslimiin fara badan qaaradda Aasiya, waana dal leh isxukun boqortooyo, mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wacan qaaradda Aasiya. Dalka xiga waa Sri Lanka oo loo aqoon jiray Ceylon. Dalkan waxaa in muddo ah haystay dalka Ingiriiska oo xukumayay, balse kadib madax-bannaanidoodii waxay la baxeen magaca maanta loo yaqaano ee Sri Lanka, waana mid ka mid ah kuwa ugu qanisan qaaradda Aasiya marka laga hadlayo xagga dhaqanka iyo dhaxalka. madax-bannaanidoodii kadib markii ay la baxeen magaca Sri Lanka, waxa uu noqday dalkan mid ku caan ah dalxiisayaasha. sidoo kale dalkan waxay dhaqan wadaagaan oo ay isku dad yihiin dalka Hindiya oo ay daris yihiin. Sri Lanka waa mid ka mid ah kuwa ugu dalxiisayaasha badan caalamka iyo qaaradda Aasiya. magaalo madaxdeedana waxaa loo yaqaanaa Colombo. Dalka xiga waa Taiwan oo loo yaqaano Formosa. macnaha magaca Formosa waa jasiiraddii quruxda badneed, waxaana magacaas u bixiyay dalka Boortaqiiska, waxayna ka mid tahay Taiwan dhulalka ay soo sahmiyaan badmareenadii reer Boortaqiis. Taiwan waa mid ka mid ah dalalka ay ka jirtay saxar siyaasadeed in muddo ah kadib markii Jamhuuriyadda China ee dalka Shiinaha uu sheegtay dalkan, balse waxa ay noqdeen dal madax bannaan, waana mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wanaagsan qaaradda Aasiya. Ka xiga waa Thailand oo loo aqoon jiray Siam. Siam waxa ay ku macaan ahayd ilaashashada iyo joogteynta madax-bannaanida, iyadoo ay hareereeyeen dalal u soo gumaysi tagay. Siam waxay magaceeda maanta loo yaqaano ee Thailand ugu beddeshay si ay u adkeyso midnimada dhaqan ee ka dhaxaysa bulshadeeda iyo dadka reer Koonfur Aasiya, waana mid ka mid ah dalalka ugu dalxiisayaasha badan. magaalo madaxda dalkan ee Bangkok waxaa u soo dalxiis taga sanad walba dad aad u fara badan. Dalka xiga waa Vietnam oo dhaca koonfurta qaaradda Aasiya. Dalkan waa dal lagu yaqaano adadeyga iyo dagaalka, waxaana magaciisii hore loo aqoon jiray Annam. waxa uu caan ku yahay dalkan inuu la soo dagaalamay dalalka kale ah Shiinaha, Faransiiska, iyo dagaalkii weynaa ee caanka ah ee ay la galeen dalka Mareykanka ugana guuleysteen. Dalka Vietnam waa mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wacan, magacii hore ee loo aqoon jirana waa Annam. Dalka xiga waa Hindiya oo ah dalka ugu dadka badan dunida, waxaana magacii hore ee loo aqoon jiray uu yahay Bharat. sidoo kale waxaa jiri jiray in loogu yeeri jiray dalkan Hindustan intii lagu guda jiray Mughal Empire. dalkan waxa uu noqday mid caalami ah, waxaana magaciisa hadda loo yaqaanaa India laga keenay webiga Indus kadib madax-bannaanidii ay ka heleen Ingiriiska 1947. India waxay noqotay mid hoggaanka u haysa qaaradda Aasiya dhanka dhaqanka, horumarka iyo tiknoolajiyadda, waana dal ka mid ah dalalka ugu dalxiiska badan qaaradda Aasiya. Dalka xiga waa Jamhuuriyadda Japan. Japan magaceedii hore waa Nippon ama Nihon, oo macnaheedu yahay asalka qoraxda. dalkan waxa uu caan ku yahay imbraadoriyada badan oo soo xukumay, waxayna soo xukuntay in badan ka mid ah qaaradda Aasiya. dhulal ku yaala oo ugu weyn yahay dalka Shiinaha oo ay daris yihiin. Japan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan xagga tiknoolajiyadda qaaradda Aasiya iyo dunida oo idil. Dalka xiga waa The Netherlands. magacii hore ee dalkan loo yaqaanay waa Holland, waxaana dhacaa bartamaha qaaradda Yurub. wadankan waa mid ka mid ah wadamada ugu caansan kuna caanka ah soo saarista caanaha gasacadaysan ee ugu badan dunida. sidoo kale dalkan waxa uu caan ku yahay inuu yahay dalka ay ka soo jeedaan dadka ugu jooga dheer qaaradda Yurub, waana mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wanaagsan Yurub. waa Ghana oo ah dal dhaca galbeedka qaaradda Afrika, waxaana loo aqoon jiray Gold Coast ama xeebtii dahabka. waa mid ka mid ah dalalka dhoofiya dahabka ugu badan ee qaaradda Afrika. dalkan waxa uu caan ku yahay
ka shaqaynta arrimaha Afrikaanimada ee loo yaqaano Pan Africanism waana dal ka mid ah dalkii ugu horreeyay ee xorriyadda ka qaatay dalalkii kusoo duulay ee reer Yurub. Ghana waxay caan ku tahay cuntooyinka loo yaqaano banku, fufu iyo waje. Sidoo kale waa dal aad u qurux badan. Magaalo madaxda dalkana waxaa loo yaqaanaa Accra. Dalka xiga waa Burkina Faso oo loo aqoon jiray Abervolta. Dalkan waxa uu caan ku yahay kan waxaa ka soo jeeda madaxweynihii ugu daacadsanaa ee soo mara qaaradda Afrika ama ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waa Thomas Sankara oo ka shaqeeyay arrimaha la xiriira isku haynta bulshada iyo horumarinta dalkiisa Burkina Faso iyo sidoo kale cadaaladda. Magaalo madaxda dalkan waxaa loo yaqaanaa Wagadugu waana dal dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Xiga waa Bangladesh. Magacii hore ee dalkan waa East Pakistan ama Bariga Pakistan. Dagaalo siyaasadeed iyo dhaqan ku saleysan oo dalka ka dhacay Pakistan galbeedkiisa in badan ayaa waxa ay keentay in dalka Bangladesh oo madaxbannaanidiisa helo 1971 kana go'o dalka Pakistan intiisa kale. Bangladesh waa mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wacan qaaradda Aasiya, waxa uuna caan ku yahay dhaqanka. Sidoo kale Bangladesh waa mid ka mid ah dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda Aasiya. Magaalo madaxda dalkana waxaa loo yaqaanaa Dhaka.